daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka oo aan ugu magac darna xog ogaal waxaan maanta aan ku sugannahay degmada Kurceel ee gobolka Galgaduud maanta waxa hoygiisa nagu marti qaaday qeyban la hasiiyay caalimka weyn Sheekh Cali Axmed Maxamuud oo aan rabno inaan taariikhdiisa aan wax ka weydiino Sheekh Cali waxaad ku soo dhawaataa warbaahinada diiniga waa dhawahay Allah idin dhaweeyo idin soo dhaweynaya adinkuna waa soo dhawdiin insha Allah taala waa idin soo dhaweynaya Sheekh Cali ugu horeen waxa ku weydiinayaa bal waxa inoo faahfaahaysaa halka aad ku dhalatay iyo halkii aad ka bilowday dugsiga Quraanka walaal hadaad weydiisay meesha aan ku dhashay iyo meesha Quraanka aan ku bilaabay waxaan ku dhashay oo la yiraahdaa waad ku dhalatay tuulada Mirig oo ku dhow Dhuusamareeb 14 kilomitir u jirta Quraanka Kariimka na dhulkaas ayaan ku bilaabay aniga oo sanad 6 jir meelahaas la igu sheego 6 jir baa tahay la yiraahdo waxay noo sheegtaa macallinkaaga dugsiga Quraanka magaciisa iyo Quraanka meesha aad ku dhameysay ma dugsiga Quraanka aad ka bilowday Quraan ku dhameysatay mase meel kale aad Quraan ku dhameysay Quraanka Kariimka waxa ii bilaabay meel baadiya oo beled ahayn tuulana ahayn igu bilaabay معلم محمد أحمد دبي معلم الأورنجري اللهم ارحم عليه أوردنتي ولا لنا أنا هين معلم كي سنة واحد الأورنجري معلم داود شيخ عمر ولجي إلهي ووينا ومعلم محمود الشيخ حسن معلم كي ساها مركا هالكاس أيو قرآن كمعلم كنا وجوب بالله مركا أو نجارسيي سورة اللي يرهدو سورة الحديد وإنت كورك أن كأقانه إن يرنا أنا هاي إلى الحجر meelahaas ilaa 7 jir inta u dhaxaysa ayaa waxa dhacday abaartii dheereed oo lagu kala haaday baadiyaha oo dadku ay maaratay kala haadeen halkaas ayaa dugsigii baadiyuhu ku burburay ka bacdi waa la soo qaaday Dhuusamareeb ayaa la keenay waxa halkaas suuratul hadiid iiga sii waday macallin Cabdulle Umar Xalane aadan macallin leeyahay oo asaguna ragga waaweyn oo ilaa 7 sano Quraanka Kariimka u fadhiyo dhigay Quraankana xaafidul Quraan ahaa asaga marka Quraanka ii dhameeyay ii naqdiimiyay ii dhameeyay jazaahumullahu ahsana aljazaa labadibana way dhinteen Allahumma arham alayhima Quraankoodii iyo ziyaaradoodii baan wadnaa waxay nooga tageen ayaan maartay insha Allah annaguna halkii ka sii wadnay Sheekh Cali aad ayaa maasan tahay sida aad noogu faahfaahisay qaabka aad Quraanka aad ku baratay iyo macallimiintaadii sidoo kale waxaan rabnaa inaan ku weydiino cilmiga kugu horeeyay ama kitaabkii kugu horeeyay yaa ku bilaabay sheekha ku bilaabay magaciisa iyo culmadaadii iska dambeeyay noo sheeg su'aashaas Quraanka Kariimka markii aan soo dhamaysanay oo macallimkii dambe oo nafasaxay Quraanka Kariimka hana insha Allah taala aan soo dhamaysanay waxaan ku wareegay madrasada sheekhani weyna Sheekh Yuusuf Direed Allahumma arham alayhi halkaas ayaan cilmiga ka bilaabay sheekha ayaa gacanta qabtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin duruustii mutawaatirka ahayd oo faraha badneed oo ay u soo xareysan jireen kharij iyo daakhilba looga imaan jiray oo ilaa dirir dhabe iyo jigjiga iyo harar iyo Jabuuti iyo laga imaan jiray Hargeysa iyo koonfur iyo meel kasta جنوب iyo shimaal sharqi iyo qarbi inta Ilaahay u qadaray la imaan jiray duruustaas ayaan ka qayb galay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ragii aad gacanta sida khaaska ugu hin jiray waxa kamid ahaa macallin Maxamuud Sheekh Xasan oo ahaa hadda naa'ibkii sheekha Sheekh Yuusuf oo xirta iyo sheekha u dhaxeeyay muciidkii sheekha ahaa waacidkii ummadda ahaa sida maanta loo dhigayo aan arintiisu ahayn sheekhaas ayaa annaga haddana si khaas ah duruusta noogu celin jiray oo wixii sheekhu xataa noo aqriyo noogu celin jiray wixii asaga Ilaahay barana gaar noo bari jiray mashaayikhdaas ayaan la soo darisnay ayaga gacanta nagu hayay ayaga dariiqada na siiyay ayaga dariiqada nagu koriyay ayaga aadaabta iyo akhlaaqiyadka oo dhan noo saxay ayaga taxliyo iyo takhliyo na soo mariyay marka شيخنا هذا وحوها شيخ عام
معلمكنا وحوها خاص كو أنا نوعها قريس وحتى معلمك وحنا نقبري جري الحمد لله رب العالمين علومته إن بدن أي اسكود يجرين ضدك هالكاي ماذا إن علومته فهمان مسألة فهمان آيات يا حديث كفهمان قياس يوحي إجماع فهمان أفرت الربع ومنهاج شيخ تحفة كأخرين جري معلمكنا ضدك يماذا دن الصيا مركا مارتي كتابك وعلن جري انت إلهي قدره مشايخنا نظن سداس أي وحنوصو بري جرين سداس أي نوجد دال جرين سداس ضدك أون إلهي مكانية يعني كميدا هاين حق الطريقة هي حق تعليمته هي حق تعلمك وحي أيجو أي نيراهدين أيجا مشايخ نوجوها حالة دي ساسد أيام كسوغنا هاي الحمد لله تفسير كان لآخرين جري أحاديث لآخرين جري أحكام لآخرين جري عقائد كأيا لآخرين جري تصوف كأيا لآخرين جري سيرة أيا لآخرين جري لغة أيا لآخرين جري وحم لمراي مجرين بقدر الإمكان قفكو أنت أو وحقا ذكره أيا وحلو آخرين جري أمداح النبي عليه الصلاة والسلام أيا لو قدر جري حتى وحن قرنا يا مالين الجمعات ضدكو أي فصح يهين شيخنا الشيخ يوسف وحو آخرين جري أمداح النبي يسير النبي عليه الصلاة والسلام أيو أمده آخرين جري أصلاً نفتي سفيرين ومدنا الدورية إني مارتي هل صع أو كميده أو صن كبير دروبين مركا إن شاء الله إلى برجاس شيخ يوسف يعدي أسوء أو نجوجا أيان أو كتير قبضة ده وحي أي نيرهدين أيان إن شاء الله تعالى أن إصلاحين أون عهدياس مشايخ ذا الله جشنا كبحننا وحين الدين تأين لبرته لجو عمل فله لجود بيه وحكلا ما هين دين تا إسلامك أون لبدلين أون تغيير يا تحريف يا تبديل لجو بدلين أون ضائفوين كان هذا إسك أردية عن لجو ملمن إن دين تا إسلامك السلف الصالح متأخرين يمتقدمين مشايخ ذا إسلامكو راد كودي إن لحيوه قول كودي إن لحيوه waxay raad ka ahaayeen in la maro diintii waa mudawan waa qoran tahay xagga iyo xagga inaan laga aadin qabiil iyo hawa nafsi iyo adduunyo inaan loo bayrin diinta nabiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam sidaa in loo raaco lagu amal falo lagu noolaado lagu dhinto lagu soo baxo sidaas ayaan insha Allah ka garanayaa mashaayikhdanaduna siday saayidad ahlul diina oo ahlul taqwa ahlul war'a ahlul irfaana ay ahaayeen اوكي ادم مثلا شي علي انت اد خيرته اهيد ما جرى عقبده اد لا كلنتي حقيقه قفكم markuu daalibul ilmi yahay caqabadooyin badan baa la soo darsaya waa jiranaya waa baahanaya waa darbeelaya hami iyo qami iyo xusn iyo kurbo dhana iimaanaysa waxa soo dhan way iska jireen laakiin annaga qasad baan lahayn ilaahayna qasadkanagii وأنه رميي إلهي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيانكو شوغني عقيدة سنين مشايخ ذا نظر نبرتي إلهي هلا تلسارته وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دابة أدونك كل كتبتا مجرته إلا إلهي بكفال غادا وعيون الوعى بلهات أنه إلهي بان تلسارني تلسار شداس إلهي بان كوكال صونين مشايخ ayagu waxa ay haystaan wax naga siiyo nagu bara markaan anigu wax weynona ilaahay baa narsiiyay oo naftooda naftanada ka hormariya marka caqabado badan waa na soo mareen laakiin hal waqti ah inaan diinta ka harno ama iska bedelno ama meel kale aadno ilaahay nama soo marin hatta waxa jirtay in dadka faalqaad noo sameeyo la yiraahdo meeshan ka tagtaan meel kale aadaan waxa la idin sameeynaya hanti baa la idin siinaya guriga la idin dhisaya waxba la idin siinaya garaada la idin siinaya waxa soo dhan waa soo marnay wax adduunyay ahaayeen wax adduunyana waxa aakhiro ayaan ka dooranay inaan mashaayikhdanada waxay yiraahdaan man sabata nabata qofka sugnaada oo meesha mashaayikhdiisu ku ogtahay ku sugnaada nabata wuu dhashaa sida geedkaas ayuu u soo dhalanaya geed har weyn buu noqonaya mirow yeelanaya ummadoo dhan baa marka hadhow intifaaci asaguna wuu ku intifaaci marka caqabado badan wayna soo mareen hatta waxaan soo martay dawladda la soo maray
in xataa duruustii la akhriso waayey in la dikrin waayey in wax kasta la soo maray haddana taasu nagama khalkhal gelin in aan duruusta ka harno mashaaikhdannaduna waxay ahaayeen dad ilaahayna ku kalsoon ayaguna isku kalsoon awraadooda iyo daraasadooda iyo diintooda iyo wacdigooda marna isma dhimin ilaahay bay tala saarteen ilaahay baana xafiday ilaahay baana ayiday intaasaan ka garanaya okay sheekh cali aad u maasan tahay maxaa ugu baaqaysaa xerta daalu cilmiga ah iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ku daawanaysa waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ama guud ahaan dadka islaamka oo dhan meel ay joogaanba in ay ku kalsoonaadaan diintooda islaamka oo aysan jirin diin ka daba tegi karta inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam buu yiri ilaahay agtiisa diinta islaamka ayaa diinka ah waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu qofkii diinta islaamka wax aan ahayn diin ahaan u dalbana laga aqbali maayo marka horta dadka Soomaaliyeed ee afkaas hadda aan ku hadlayo fahmaya kharij iyo daakhil waxaan ugu dardaarmayaa oon ugu nasaaxaynayaa walaalayaal diintiinni islaamka ku dhaganaada ha ka bixinina ha ka ridoobinina ha ka bidcoobinina diinta islaamka ayada aakhira iyo adduunka idinku filan haysta saasaan leeyahay waxaan kaloo kula dardaarmayaa diinta islaamku geedaha lagama qaadan waxaa laga qaatay oo ilaahay u soo dhibay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii qofku nabi maxamed jeclaado ayuuna diintiisa haysan karaa oo ku camal fali karaa inaan nabi maxamed jeclaantiisa qof la arkaaba ku dadaalona waa ugu nasaaxaynaya ilaahay jeclaantiisa oo ka sii weyn in lagu dadaalona waa ugu nasaaxaynaya haddii ilaahay aan jeclaanno nabi maxamedna jeclaanno calayhi salaatu wasalaam diintii ilaahay nabi maxamed u soo dhiibana aan jeclaanno waxa weeye waan liibaanaynaa intii diintu soo martay oo dhanna axsanul jaza allah u jazeeyo tawqiirintooda iyo tacdiimkooda iyo ixtiraamkooda hal yaan la moogaan ilaa waxa weeye dadkii diinta islaamka u soo kifaaxay sida a'immadii islaamka imaamu abi xaniifa imaamu maalig imaamu shaafici imaamu axmed bin xambal ayagaa diinta oo dhan maarataayay insha allahu tacaala kala dhigdhigay mas'alo kasta meel ku ogaaday raggii ka baxay iyo ayaga iyo mashaa'ikhdoodii waxaan rabnaa in ixtiraamkooda iyo siiradoodii la hayo oo la tawqiiriyo la tacdiimiyo raggii insha allahu tacaala saaxibu saxiixayn sida muslim iyo bukhaari asxaabu sunankii sida ibnu maajah tirmidi iyo abi daawuud nisaa'i iyo waxa ay ka tageen oo qoran oo mudawan ah maaragtay lagu dhaqmo lagu camal falo caqaa'idkii maaragtay salafu saalix mardiga ahaa inaan laga tegin diinta islaamka waxaan dadka ugu baaqayaa in la barto laguna camal falo in la barto lagana barto dadka ahalka u ah ee diinta islaamka maanta matali kara alculamaa warahatul ambiyaa ambiyada dhaxalkeedii kuwa dhaxlay waa culamadaas caamiliinta oo diinta fahmay sida maanta dadka nool oo diinta daraasaynaya intii ka nool diinta ha laga barto waxaan kaloo ugu baaqayaa insha allahu tacaala waxaa hadda fudud si diintii loo qaato aad bay uga fududahay sidii berigii hore diinta qaadashadeedu way iska dhib badneed dadka yaqaanana way iska yaraayeen meelo dhaardheeraa loo aadi jiray hadda waxaa laga yaabaa gurigaaga iyo tuuladaada iyo magaaladaada meel kasta in aad ka helayso cilmigan hadda maadiga oo hadda adduunyada looga shaqaysto wuu fiican yahay cilmigii kale iyo asaga labadaba ha laysku barto maadaama dadkii abnaa'u zaman la noqday oo qofkii sheekha ahaa ee cilmiga si kasta u garanayay aan maanta ixtiraam uusan helaynin ama qaabilaad uusan helaynin ama uusan xataa wacdi masaajidii ka jeedin jirin ilaa uu karteel qaato marka kartoomadan ayaan laydinka badsana qaata cilmigana sidii uu ahaa ugu camal fala alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi diinta islaamku ayadaa sarraysa in laga sara maro lama rabo gaaladu waxaa la rabaa qofka mu'minka inay ka edab qaadato in qofka mu'minka ka cilmi badan yahay xagga maadiga iyo xagga kaleba inuu cilmiga dhan kasta inuu uga dheereeyo ayaa la rabaa inuu ka geesisan yahay baa la rabaa inuu ka waxgaradsan yahay baa la rabaa marka insha allah dadka islaamkana waxaan ugu baaqayaa fii maa baynahum
inay iska daayaan xiqdiga iyo xasadka iyo tabaaqudka iyo taxaasudka nabigu ka dayriyey oo nabigu naga nahiyey calayhi salaatu wasalaam muslimiinta dhan gacanta inay isqabsadaan diintooda inay maaragtay daraaseeyaan inay tadbiiqiyaan in diinta islaamka la noolaan maayo waa xaqiiqo meer dhow baa dadku la-anayaa koonkoo dhan baa maaragtay la dabagembinayaa la baabi'inayaa cid ku haraysaa ma jirto kullu man calayhaa faanin wax alla wax adduunka ku sugan way baaba'ayaan way tegayaan wax harayaan ma jiraan wayabqaa wajhu rabbika duljalaal ilaahay unbaa hari doona marka khaatimada allah noo sameeyo ragga khayr badan allah u jazeeyo hadda barnaamijkan wadaana diinta wax badan bay ku tarayaan ajar badan baa u soconaya in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin buu yidhi ilaahay dadka samafalayaasha ilaahay ajarkooda ma lumin doono muxsiniintay ka mid yihiin raggaanu ilaa waxa weeye warku meeluusan gaarin iyo culimmadiiboon maaragtay ayay warkii caalamka isgaarsiinayaan islaamka marka taqwada ilaahayna way isfaraynaa waan isu dardaarmaynaa diinta islaamkana hala midoobo muslimiinta ha midoobe dadka islaamka meel kastuu joogo ha loo danqado waxa hadda yuhuudu ay ku dhigayso dadka islaamka ha laga danqado qur-aan ha la akhriyo ilaahay ha la baryo waxa gacan siinaya yuhuudda iyo waxa gacan siinaya iyadaba meesha allah ka bixiyo cizigana dadka islaamka allah siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka aad naga daawanaysaan waa beejajkeena diiniga ah oo kala ah shabakatul mutaxaabuuna fillaah hoyga diinta TV salaaxudiin TV iyo an-nasiihatu diiniya sheekh cali waxaan ku leenahay aad ama santaa